السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaa ka hadlaynaa mawduuc ku saabsan Imbratoriyadda Romania annagoo soo koobnay dhammaan dhacdooyinkii iyo duullaamada ay soo martay sida ku xusan taariikhda waxaa la aasaasay magaalada Roma 21 Abriil 523 miilaadiga ka hor waxaana aasaasay laba nin oo walaal ah oo lagu kala magacaabi jiray Romulus iyo Remus. labadan walaalaha waxay leeyihiin sheeko cajiib ah. waxaa cadda lagaga tegay markii ay dhasheen ilaa xaaladooda ay u dhawaato dhimasho ayaa waxaa helayay dhadig ah taasoo ilaalisay korisan ilaa ay ka waaweynaadeen kana aasaasay magaalada Roma. sida taariikhda ku xusan walaalihii waxaa ka dhex dhashay loolan iyo tartan ah ayaa xukumay magaalada. Romulus wuxuu dilay walaalkii Remus sidaas ayuu Romulus ku noqday boqorradii ugu horreeyay ee xukuumada Roma. boqorkii Romulus kadib waxaa ka dambeeyay 7 boqor iyagoo xukumayay muddo ah 243 sannadood waxaana u dambeeyay boqorkii Tarquinius kaasoo ku kacay shacabkii Roma isagoo ku sameeyay xadgudubyo waxaana la eryay sanadkii 509 miilaadiga ka hor. inta kadib nidaamkii maamul ee boqortooyada ah wax loo bedelay nidaam jamhuuri ah ayna xukumayaan laba nin garsoore ah soona dooranayaan golaha guurtidu. labada garsoore waxay wadaagayaan awoodda magaca masabka dictator waxaa la siin jiray labada garsoore mid marka ay yimaadaan waqtiyada dagaalkii loolamadu. darajadan waxay ahayd awood sii deysan oo madax bannaan. waqtigii jamhuuriyadda Romania waxaa dhacay dagaalkii Punic oo ahaa 3 dagaal oo isdaba joog ah oo u dhexeeyay Roma iyo Carthage laga bilaabo 264 miilaadiga ilaa 460 miilaadiga ka hor. waqtigaas waxaa ahayn qaar ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee dhacay. intii lagu guda jiray dagaaladan wuxuu isku dayay hogaamiyihii Carthagiyiintu inuu ku duulo Roma isagoo ka soo galay dhinaca buuraha dhaadheer ee Alpes isagoo wata dhammaan ciidankiisii iyo muroodiyadiisii. wuxuu ku guuleystay inuu qabsado bartamaha dhulka Talyaaniga iyo inuu ku jabiyo dhowr dagaal Romaaniyiintii laakiin dhammaadkii muusan awoodin inuu qabsado caasimadda Roma. wuu dhammaaday dagaalkii Punic waxaana guuleystay Romania waxaana la jabiyay oo la burburiyay Carthage. Roma waxay noqotay boqorada badda dhexe iyadoo baratay farsamo gacmeedyo ah sida loo sameeyo doomaha taasoo ay ka baratay Carthage intii lagu guda jiray dagaalkii Punic. kadib markii ay burburisay Carthage way bilaartay jamhuuriyaddii Roma waxay noqotay awood weyn intii lagu guda jiray qarnigii 1 ee miilaadiga. Roma waxay ahayd mid xukunta Talyaaniga, Giriiga iyo Isbaanishka iyo qaybo ka mid ah dhulka Anatolia maanta loo yaqaan Turkiga iyo Waqooyiga Afrika. 19 miilaadiga waxaa xukunka la wareegay Julius Caesar kaasoo lahaa furashooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin dhulkii Gaaliya kasbadana shacabiyad weyn oo reer Romania. markuu Julius Caesar ka soo noqday duulaamadiisii wuxuu ku xadgudbay sharcigii Romania wuuna diiday inuu dhiibo hubkii ciidanka markuu galiga Talyaaniga. golaha guurtidu waxay u qaateen arrinkaas inuu yahay khiyaamo la khiyaameeyo jamhuuriyadda sidaasna waxaa ku horay dagaalo sokeeye oo u dhexeeya Romaaniyiinta. wuxuu awooday Julius Caesar inuu baabi'iyo dhammaan cadowgiisii wuxuuna naftiisana anees uga dhigay dictator inuu ahaanayo noloshiisa oo dhan. taasna waxaa keenay in golaha guurtidu soo abaabulo in la dilo sanadku markuu ahaa 44 miilaadiga ka hor iyagoo dacwad ka dhiganaya in la badbaadiyo jamhuuriyadda sidoo kalena in la dilay xubno ka tirsan golaha guurtida. kadib markii la dilay Julius waxaa sii horay dagaaladii sokeeye iyagoo dagaal ka dhex qarxay laba ka mid ah hogaamiyaashiisii oo kala ahaa Antonio iyo Octavius. Antonio wuxuu garab ka doontay boqoradii Masar ee Cleopatra si uu u qabsado Roma laakiin loolan adag dheer kadib waxaa guuleystay Octavius. dhammaadkii dagaalkii Actium sanadkii 1 miilaadiga ka hor waxaa isdilay Antonio iyo Cleopatra. kadib jabkaas ku dhacay Octavius wuxuu qabsaday Masar isagoo hoos keenay xukunkii Imbratoriyadda Romania. Octavius wuxuu ka helay shacabkii Romania boos sare iyadoo sabab u ahayd guulihiisii. wuxuu noqday imbratorkii u horeeyay Roma sanadkii 27 miilaadiga ka hor. magaciisana wuxuu bedelay Augustus Caesar. Roma waxa uu dhamaaday waqtigii jamhuuriyadda waxaana u bilowday waqtigii imbratoriyadda. intuu xukunka haystay Augustus Caesar waxaa dhacay dhacdo muhiim ah waana dhalashada Nabi Ciise waana bilowgay fidinta dacwadda Islaamka. waxaana ka jiray imbratoriyadda Romania diimo kala badan sida in la caabudo sanamo badan. sidoo kale waxaa jirtay diinta Yuhuudiyadda. fiditaanka diinta uu fidinayay Nabi Ciise waxay la kulantay diitaan adag labadii qarni ee hore waana markay imbratoriyadda kala haysteen Neron iyo Diocletian. waxaa sii socday balaarintii imbratoriyadda Roman waxayna gaadhay fiditaankii ugu fogaa sanadkii 112 miilaadiga ka hor isagoo uu hogaaminayay imbratorkii Trajan. badda dhexe waxay noqotay bad ay leedahay Romania. xuduudaha imbratoriyaddu waxay gaareen dhulkii Faris ilaa Ingiriiska iyadoo sii dhex maraysa bariga Yurub iyo Waqooyiga Afrika. dhulkii Shaam iyo Ciraaq iyo Masar iyo dhammaan koonfurta iyo bariga Yurub. dhulalkani maanta waa kuwa ka mid ah 54 dowladood oo jira waqtigan. intii lagu guda jiray qarnigii 13aad waxaa ku dhacay imbratoriyaddii dhacdooyin badan oo ay ka mid yihiin awoodda siyaasiga Faris iyagoo la galan loolamo dhaadheer oo adag. Fursna waxay ku guuleystay in gobolada qaar ka soo saarto Romaaniyiinta sida gobolka Armenia iyo Ciraaq. sidoo kale waxaa ku dhacday mushkilad weyn qarniga 3aad waana xanuunka loo yaqaan taan caloleedka isagoo ku faafay dhammaan imbratoriyaddii wuxuuna dilay ku dhawaad 10,000 oo reer Romania ah waana sababaha keenay in dib u noqoto imbratoriyadda Romania iyadoo ay jirtay
inay sii bilaarinayso imbaraadooriyaddii mushkiladaheena farabateen ayaa wuxuu ku fikiray imbaraadoorkii Diocletian inuu imbaraadooriyadda u kala qaybiyo laba qaybood oo qayb kasta uu xukumayo imbaraadoor iyo qof ku-xigeen u ah. sidaasna waxaa ku xukumaya 4 qof, waxaana lagu magacaabay xukunka noocan ah xukunka Afriyada ah. laakiin muuba sii daba dheeraan oo wuxuu kusoo gebagabay guuldarro iyo fashil. waxaa dhacay rabshado badan iyo in lagu loolamo xukunka ilaa uu ka qabsaday Qisطinطiinkii weynaa. sanadkii 360 miilaadiga waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah imbaraadooriyadihii ugu wanaagsanaa ee soo maray Roma. wuxuu u wareejiyay caasimadii bariga magaalada Byzanta, taasoo markii dambe loo bixiyay Qisطinطiniya, sharfid isaga la sharfayo. imbaraadoorkii Qisطinطin wuxuu aqoonsay diinta Masiixiyadda, diin ay leedahay imbaraadooriyaddu. aakhirkiina waxaa qaatay isaga si uu u noqdo imbaraadoorkii u horeeyay Masiixiya. sanadku markuu 348 miilaadiga waxaa xukunka qabsaday imbaraadoorkii Susudios, kaasoo ku dhawaaqay in diinta Masiixiyaddu tahay diinta keli ah ee Romaaniya, wuxuuna yidhi waxay ahaan doontaa weligeed diinta keli ah ee qarniyada soo socda. wuxuu soo saaray Susudios sharciyadiidii dadka caabuda sanamada ee ku haysta diimaha qadiimiga ah, wuxuuna amray in la xidho meelaha ay ka cibaadaystaan Fircooniyiintii iyo Giriigiyiintii, wuxuuna mamnuucay in la muujiyo wax astaan diimid ah. sidoo kale wuxuu gubay kutub fara badan oo ay ka mid yihiin maktabadii weyneed ee Iskandariya. sidoo kale wuxuu diiday in la qabto ciyaaraha Olombikada. waqtigii Susudios waxaa dhacay inay kala baxaan labadii imbaraadooriyad ee imbaraadooriyaddii bariga ahayd ee lagu magacaabi jiray Byzantiya, caasimadooduna ay ahayd Qisطinطiniya, iyo imbaraadooriyaddii galbeed caasimadna u ahayd magaalada Roma. waxay noqdeen laba imbaraadooriyadood oo wax kasta ku kala duwan, xitaa isku luqad maysan ahayn. Romaaniyada bariga ku taal waxa lagaga hadli jiray luqadda Greek ah, halka ta galbeed lagaga hadli jiray luqad Laatiini ah. kala duwanaanshahaasi kuma uusan koobnayn dhinaca luqadda keli ah, xitaa waxay ku kala duwanaayeen madhabka diinta ah ee kala haystaan. Romaaniyada bari waxay haysatay madhabka Ortodokska, halka ta galbeedna ay haysatay madhabka Kaatooliga ah. intii lagu guda jiray qarnigii 5aad waxaa hoos u dhacay awooddii imbaraadooriyaddii galbeed, waxaana bilowday duulaamo ay kusoo qaadeen dadkii Jarmalka ahaa iyagoo qabsanaya dhulkii imbaraadooriyadda. markii dambe waxaa awoodda Roomaanta galbeed la wareegay dadkii Jarmalka ahaa. dadka Jarmalka ah waxay ka koobnaayeen qabiilo fara badan oo maanta u qaabaysan dowlado la yaqaan oo reer galbeed ah sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka. sanadkii 410 miilaadiga waxaa kacay dadkii Jarmalka ahaa qabiil ka mid oo lagu magacaabo Gotistiyiinta galbeed, iyadoo uu hogaaminayay boqorkii Arag, waxayna duulaan ku qaadeen dhulkii Roomaanta galbeed ilaa ay gaadheen magaalada caasimadda ahayd Roma. ugu dambeyn waxaa dhacay imbaraadooriyaddii Roomaanta galbeed sanadku markuu ahaa 426 miilaadiga, kadib markii la afduubay boqorkii dadkii Jarmalka ahaa ee Odoacer, iyadoo uu afduubtay imbaraadoorkii Romaaniya Romulus Augustulus si uu u noqday imbaraadoorkii u dambeeyay ee imbaraadooriyaddii Roomaanta galbeed. waxaa sii socday imbaraadooriyaddii bari ee Byzantiniya muddo ku dhow 1000 sano kadib dhicitaanka imbaraadooriyaddii galbeed. waxaa Byzantiniyiintu isu yaqaanay inay yihiin Romaaniyiin, waxay sii wateen ku dhaqanka sharciyada iyo caadooyinkii Romaaniyiintii hore. dadka la jarkayaan waxay u yaqaaneen Romaaniyiin. imbaraadooriyaddii Byzantiniya waxay ahayd mid aad u xooggan, waxayna ahayd mid ka mid ah quwadaha waaweyn ee caalamka, waxayna gashay dagaallo dhaadheer. dhinaca bari waxay kala dagaalamaysay Faris iyo Carabta, dhinaca kalena waxay kala dagaalamaysay Ruushka iyo Bulgaariya. waxaa lagu tiriyaa imbaraadoorkii Justinian hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee soo maray Byzantiniya, kaasoo isku dayay inuu soo celiyo raadka Roomaantii hore, wuxuuna u istaagay inuu soo celiyo sharciyadii Roomaantii hore, wuxuuna sameeyay kaniisadii loo yaqaanay Hagia Sophia ee Qisطinطiniya. waxay dhacday imbaraadooriyaddii Byzantiya sanadkii 1453 miilaadiga, waxaana raday suldaanka Cusmaaniyiinta ee Maxamed Faatix, wuxuuna ku bedelay magacii magaalada Qisطinطiniya isagoo u bixiyay Istanbul, kana dhigay caasimad cusub oo ay leedahay Cusmaaniyadu. sidaas ayayna ku burburtay imbaraadooriyaddii Romaaniya labada dhinac ee bari iyo galbeed. waad ku mahadsantahay daawashada mawduucan, waa inoo mawduucan xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.